سبحانه وتعالى وحصل ويني أنا مان ما يرضى قارن جمهورية الصومال نولي هاي سدحيلا وتقدم من دور الشو ما يرضى هاكن شوقة وعندك سول ويني دقمتي بالبراه وحنا أدو فرح سنة هاي إنه مدة هاكن يشوقنو أن لبتشر أما إنك بدنا نكلفه إنه marka koobaad ujeedada uu nimi oo halkan shirku ku furmayo oo ururka dawladaha hoose muxuu qabtaa macnihiisu muxuu yahay maxaad ka tahay muxuu u jiraa maadaama inta badan maayaradu cusub yihiin inay fahmaan oo aynu ujeedadii laga lahaa ururka dawladaha hoose aynu halkan ku falanqeyno kuna ansixino maxaan ku dhahdaa madaxdiisii qodobka labaadna waxa weeye in ay waqti nasiib u helno inaynu isku helno intan oo maayar oo mas-uul kastaaba degmo xukumo kuna soo baxay codkii shacabka sitana xasaanadii iyo maamuuskii ciddaa uu matalayay waxaynu ku soo baxnay cod doorasho ah waxaan ku matelnaa shacabkeenna waxaan ku shaqeynaa siyaasadda qaranka ee madaxweynaha oo ah mandate awoodiisa ah inuu u jaro shacabka oo ay degmo kastaaba madax bannaan tahay una shaqeyso kuna shaqeyso shuruucda dalka u taalla una shaqeyso una adeegto bulshada ay mas-uul ka tahay inaynu isbaranno kala faa'iideysano degmaba degmo way ka cimilo duwan tahay degmo kastaaba degmada kale waxbay kaga duwantay waxna way kaga wanaagsantahay waxna way kaga hooseysaa markaa si aynu kala barano oo kala faa'iideysano iyaduna waxay noqonaysaa jaanis aanu soo helnay waan ilaahay subxaana watacaala ugu mahadnaqayno mar labaad iyo mar saddexaaba waxaad leeyahay soo dhowaada labadaa maalmood ee halkan joogno waa jaanis maxaan ku dhahdaa waqti weeyaan naadir ku ah ama ku yar in sidan oo kale aynu isu helno marka waa inaynu culays saarnaa si fiican u fahanaa ururka dawladaha hoose wixii laga doonayey ama waxa laga rabo intan imika muuqda in ka badan baa laga rabaa intan imika inoo muuqata in ka badan baa laga rabaa waa matalaha ama doodaha dhammaan dawladaha hoose dalka wuxuu doodaa ama u hilaadiyaa xuquuq kasta ay leeyihiin dawladaha hoose sida uu sharci u dhisan yahay structurekiisu sharciyaqaanaa ka mid ah haddii laysku qabto in intaa waa lays qabanayaa awood maamul oo ay degmadu leedahay ayaa laga yaabaa inuu wasiir isticmaalo awooddii ay degmadu lahayd halku maayarku ka hadli lahaa ururkan dawladaha hoose ka hadlaya xaqu leh inuu tago la fadhiisto u sheego wasiirku warqadaa uu qoray inay ka hor imanayso shuruucda dalka inay awooddaas tahay awood heer degmo ah oo aan ahayn heer wasaaraded aan ahayn wax aada iyo aada u fara badan ayuu ururkani ka shaqeeyaa isdhexgal buu leeyahay iscaawin buu leeyahay in degmooyinka degmaba degmada ka hooseyso la caawiyo oo degmooyinku inta contributions ka ururiyaan degmooyinka hoose sare loo soo qaado degmo kastaaba waxay kale degmadan dheer tahay looga faa'iideeyo hadday tahay aqoon hadday tahay qalab haddii ay tahay maxaan ku dhahdaa haddii ay tahay wax kasta oo ay degmadan kale ay dheer tahay waa in loo faa'iideeyaa si ay dawladaha hoose ee dalku aanay u kala korin ama aanay kala horo qaadin ay isla jaan qaadaan oo ay gacan siiyaan waxaan kusoo gabagabeynayaa kolley waqti badan baa inoo yaala shir baa inoo yaala waxaan idin leeyahay dhammaantiinba haddaan nahay dadka reer berbera waan idinku faraxsannahay soo dhawaada baan idin leenahay insha allah waynu kala faa'iideysan doonaa
shirkuna inoo furay gudoomiyaha gobolka inoo furi doona iyo wasiirka mar labaadna saxan soo dhawaad meelaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.